gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in Iiraan ay in ka badan 10 madfac xalay ku garaacday 2 saldhig oo uu militariga Mareykanka ku leeyahay dalka Ciraaq. Afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca Mareykanka ee loo yaqaano Pentagon-ka ayaa sheegay in gantaalada baalistiga lagu garaacay saldhigyada Al Asad iyo Erbil ee ciidamada cirka Mareykanka ay ku leeyihiin Ciraaq. War kale oo soo baxay ayaa sheegaya in saldhig saddexaad oo lagu magacaabo Kamtaji oo 27 kilomitir magaalada Baqdaad u jira isna la duqeeyay. Bayaan ka soo baxay ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa lagu sheegay in uu si guul ah uu ku dhammaaday weerar ay sheegeen inay ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada Mareykanka ku leeyihiin Ciraaq. Waxaa kale oo bayaanka lagu sheegay in duqeyntaasi loogu arguday Genaraal Qaasim Suleymaani oo ay toddobaadkii hore Mareykanka ku dileen duqeyn cirka ah xilli uu marayay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ee caasimadda Ciraaq. Weli ma jirto wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay duqeynta ay Iiraan u geysatay saldhigyada Mareykanka ee Ciraaq. Hase yeeshee waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso sidii ay u soo ururin lahayd xogta ku saabsan khasaaraha weerarkaasi. Dhanka kalena waxaa dhowaan aqalka cad ee madaxtooyada Mareykanka gaaray xogeyaasha arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga, kuwaas oo kulan degdeg ah la yeelan doona caawa madaxweyne Donald Trump si ay uga jawaabaan weerarka ay Iiraan ku qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Ciraaq.